runtii kulankan wuxuu ahaa ana ahaan kulankii labaad oo Muqdisho aan kulan hore ku soo yeelanay haddana kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka ah ee Puntland ay la kulantay ra'iisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada Soomaaliya iyo walaaca haya bulshada rayidka ahayd si fiican soo afgaranay waxaana soo u jeedinay talooyinkeena ku aadan waxyaabaha la isku hayo doorashooyinka in xal laga gaaro ra'iisul wasaaraha ballan wuxuu noo qaaday inuu qaybtiisa geysan doono haddana wuxuu u socday ay tahay inuu xal laga gaaro runtii aad ugu faraxsanahay wuxuu noogu waramay si waafi ah oo aan dhihi karno si aan siyaasadeysnayn annaguna wixii aragtideena aan ku biirinay waxaan rajaynaynaa in qof walba Soomaali ah baaqna halkan ka dareena in siyaasiyiinta Soomaalida dhammaan ay qayb ka qaataan hawsha doorashada oo u ah ubuc walaac badan dadka Soomaaliyeed ka hayaan in la isu tanaasulo in jiha loo furo arrinta doorashada in xal Soomaaliyeedna la gaaro doorashadan xilligeeda ay ku dhacdo ayna tahay wax laga heshiiyay noqoto waana u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisa